Conversation with Casey. I'm gonna sell my house next month cause I'm broke. Waxaan rabaa inaan xaraasho gurigayga bisha soo socota cause I'm broke. Maxaa yeelay waxaan ahay sheet aan noqday. Every hunger you're suffering about, gaajo walbo ka cabanaysid, want to cover, ma dabooli doonto to sell inaad iibisid your real estate, hantidaada maguuraanka. I have a big trouble. Ani waxa ay haysto dhib weyn, and you can't feel that. Adiga taas ma dareemi kartid. You are going to wipe out. Waxaad rabtaa inaad tirtirto the inheritance of the children, dhaxalka carruurta. If you aren't happy with to sell my own real estate, haddii aadan ku faraxsanayn inaan iibiyo hantiyada maguuraanka, how can I solve my local problem? Sideen ku xallin karaa dhibaatadayda gudaha? The man is the one. Ninka ragga waa qofka who consults, kaasoo ka tashada about how to solve, sidii uu ku xallin lahaa his own critical conditions, xaaladihiisa gaarka oo cakiran. That's why I reached that decision. Waaba sababtaas aan sababtan u gaaray go'aankaas. And it seems to you boring. Anigana waxay kula muuqataa mid mirax ah. So what can I do? Sidaa daraaddeed, maxaa samayn karaa? You have to look for companies. Waa inaad raadaysaa shirkado, those invest, kuwaasoo maalgeliya, the people, dadka. Do you know a company? Adig ma taqaanaa shirkad which invests me, taasoo ani maalgelinaysa, and trusts, haddana ay aaminayso? Yes, in our country. Waddankana dhexdiisa, we have large companies. Waxaan haysanaa shirkado waaweyn. Those invest, kuwaasoo maalgeliya, the small businesses, ganacsiyada yaryar, and large businesses, iyo ganacsiyada waaweyn. That is a good idea. Taas waa fikrad fiican. Please, fadlan, follow me, iraac, and let me start it today. Maantana aan bilow.